lagu degaa bulshadu waa habar wadaag hilbiyo dhiig wada dhasho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن مركل أخيارتها هذا نقد دعوتاي كسر دوادة برامج كي أرمها بالشدة تلفزيون كقرن كالسومالي لان وتضبط كستان يدين كسر تبينا حرونة تلفزيون كي مقالة هرجيسة برامج كي أرمها بالشدة أعلى وحنا كهذا الله حال ده كل دوانة بالشدة يدرفها مركز تاجين بالشدة كصابسن يولي بأرمها كل دوانة دين عهور بركة بالشدة يأرمها صدر خصية تضبط كم برامج كي وحنا كهذا الدونا حالة أبارتها أو غيبة كما دون ذلك كل فتي iyo saameynta ay ku yeelatay bulshada reer baadiyaha ay dabcan bulshada magaalada baa hoo dareentay abaartaasi markay reer baadiyaha qabsato abaarto toddobaadkan barnaamijka waxay gala qayb galaya wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed iyo afhayeenka golaha guurtida Soomaaliland Xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri Jaamac dhammaantood ba waxaan barnaamijka kaga hadli doonaa xaaladda abaarta iyo sidii bulshada Soomaaliland ay uga qaadan lahayd taakuleynta iyo gurmadka loo fidinayo dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen iyo dabcan dunyadoodaba mudane wasiir dhammaantiin horta ku soo dhawaada barnaamijka aan ku bilaabo wasiirka diinta iyo waqaafta Sheekh Khaliil wasiir aniga mar labaad ku soo dhaweynaa barnaamijka waxa dabcan kamid tahay gudida heer qaran ee madaxweynaha abaaraha uu magacaabay de xog baad kulay haysaa fara badan oo abaarta ku saabsan bal haddii aad istiraadid tilmaan ka bixi ama cabir ka bixi saameynta abaartu ay dadka ku yeelatay maxaad ku cabiri lahayd بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة كدب runtii abaartu saa baqshantihiin abaar aad iyo aad u daba dheeraatay weeye abaartu gobolada ay saameysay waxa weeye gobolada ay ku bilowday markii hore gobolada awdal iyo salal iyo waqooyi galbeed ama maxaan ku raadayay maroojeex iyadoo oo runtii ay ka ku bilowday haddana way sii riiq dheeraatay dadkii ay ku soo qaxeen ama u soo guureen inta xeeb hoose iyo hadday noqoto xagga hawdkan waqooyi Hargeysa iyo galbeedka hawd beeraleyda lagu soo baxay lagu soo yaray muxuu ahaayay udub ku dhacay iyadana way sii saameysay marka waxa oran kartaa maroojeex iyo awdal iyo salal iyo qaybo kamid ah tabcan maxaan ku raadayay daadmareed imikana waaba sii fido waxaad oran kartaa waxay runtii tobanba beela qaarkood ay gaaraysaa saaxil ay gaaraysaa dhinacan sanaag bari iyadana runtii way ka jirtaa oo dadkii maartay de waxa yimaadeen ceelafon bal suuqi wixii sanaag bari joogay ceelafon bay soo baxeen marka waxa uu ilaa 6 gobol ayaa taqriiban maanta ay taabatay abaartaas oo aan ku qiyaasno marka hay'adda neerad la eego iyo warbixinta ka soo rusay waxa loo qiyaasay 150,000 qoys cid ay saameysay oo u dhigma 1 milyan oo qof maanta runtii abaartu iyadoo saa u daba dheeraatay haddana waxaa dareemaysaa dadkeenu iskaashigu sameeyo awgeed bay dad ku soo nool yihiin waayo baaqii u horreeyey gudoomiyaha maartay gudida abaaraha oo ah mudane Axmed Saylici Cabdiraxmaan Saylici oo madaxweynaha qaranka ayaa runtii baaq jeediyay baaq caalami ah iyo runtii baaq caalamiga uu ku horeysiyay dalalka islaamka maxaan ku hay'adda ku urursan yihiin ee laba gaabxaday ururka iskaashiga islaamka ururka islaamka waxa loo gudbiyay qoraal bishii July ee kala hore 2015 qoraalkaas ilaa imika jawaabtoodu waxa ka soo jawaabay dalka Imaaraadka oo 4 qoys wax siiyay dalka Qatar isaaslay Sacuudiga imika wuxuu ballan qaaday 20 qoys inuu 15 qoys inuu wax siiyo aan ku soo noqday wasiir xildhibaan Cabdiqaadir xildhibaan idinku ka kala guurtaan horta guud ahaan baarlamaanka gaar ahaan ka kala guurtaan adigu shakhsiyan si baad uga muuqanaysay gaara hawshan gurmadka adigu iyo xildhibaan Axmed Iriya Nacna maxaad horta ka dareysantiin abaarta de waxaan ka dareensanahay sida uu sheekhu sheegayo iyo hay'adda neerad madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ilaamka u jeediyeen waa wax jira waa wax dhici jiray awalba
oo waxaynu inagu wax iska tari jirnay waa wax loo baahan yahay qof awal oo muwaadin oo somalilandiba inuu waxii kari karo ilmaha yare iskuulka dhigta hadduu nusu saacidiisa bixiyo waad ogey kiinaynu caawinaynay soomaaliyaynu caawinaynay innagaa is caawin karna wax dhaqan aynu u lahayn oo weligeen marka waxaan oo kale inagu yimaadaan marka ugu horreysa inagoo ilaahay kaashanayna aynu inagu isku tashan jirnay wey marka aniga nacnactaayada waxay ahayd dee waan la kulan meesha iyadoo arrinka lagu hayo itaalka in dee mudanayaashana la midka inagu daydaan oo ay haddii baanu bil mushaharkeed baanu bixinay waxayna yeelaysaa ma jirto ilaahayna xasanaad baa lagaga helayaa bini aadmiguna inuu wax istaro abaartanna dee way ka duwan tahay kuwii kale waxay dheer tahay kuwii kale xoolaha iyo tan beerihii baa inaga gasho xitaa beerihii baan waxba bixin marka wax cusub maaha wax somalilan dhaqan u lahayd idaacaddan aad maanta joogtaan deerkeeda 460 kun oo ardayba 460 kun oo midoo labana 490kii bixiyey maanta deerka intaa leega aad arkaysaan ee badbaaday caruurtii reerkiisa weliba gobolka Maroodi Jeex ayaa mid waliba xabad labana bixiyey deerka aad arkayso marka dawladinka maanta ku shaqeynaya wataasiir ugu dhisay oo wax dhaqan aan u lahayn wax markaan ilaahay la kaashanay ilaahayna inagu asturo guddiga madaxweynaha magacaabay runtii guddi ka soo bixi karta hawsha oo hawshan qaban karta oo lagu aamini karo oo kartideeda leh dhinac walba markaad ka eegto ama culimaha ahaato ama wasiiraha ahaato ama ha ahaato infaaq waana dad la aamini karo dadka wax bixinaya ay ku aamini karaan marka waxaan aaminsanahay in aynaan isla sugin sida abaartu u kala kulushahay dadku ay bilaabaan culimada iyo mas'uuliyiinta madaxweynuhu magacaabay loo dhiibo golayaashu mar walba roolkooda ka qaadanayaan shaqaalaha ayaa soo gaari doontaa askarta militariga ay gaari doontaa waxaan iyagana wax yeelin ummadda abaartu haysana wax tara baan iyagana ilaahay ka rajeynaynaa inaanu anaguna alla idinku daydo un baanu lahayna maaha waayo aragnimada inta badan inuu joogno meesha iyo sidii wax loo waa tilmaanu waxay wey maaha wax ama matalan aan doonayna in la ogaado aan ma jeclayne laakiin cid ku sheegtaan garan waxa xildhibaan anaga la socono oo kullayeen si gaar ah oo qolada warbaahinta wax badan baan la soconay laakiin marka laga tago shakhsi oo qof uu bixiyay ka baarlamaan ahaan meenay mudnayn abaartu markay sidoo kale u daba dheeraatay in inta fadhi laga yeesho de marka go'aan laga soo saaray labadii golaba fasax bay ku jiraan laakiin gudiyadii joogtada way shaqeynayaan de warkana way maqleen inta joogtaan metashay inta maqan si dhaqsaalood uga maqli doontaan warkana doonayso ilaa berri saa dambe waxay u baahan yihiin annana waa gaarsiinayna gudidana way sarki doonaan de haddii waayeelka marka ugu horreysa wax bixin waayo in lagu daydo hadiyo goor guurtida iyo wakiiladu marka arrin ay ka qayb qaadan doonaan oo aan labadeeda qof ku ekaanin weeyaane waxaan insha Allah ka rajeynaynaa labada ishee soo socda inayna iclaankoodu idin soo gaaro waa tahay waan ku soo laabanaya xildhibaan maxamed shukri jaamac gudoomiye adigu gudoomiyihii rugta ganacsiga Soomaaliland baad dabcan waxaad qayb ka tahay guddida madaxweynaha oo magacaabay abaaraha ka ganacsata ahaan intay in leeg badidu ku dareensantihiin abaartan saameysay bulshada ee dad iyo xoolaba dabcan dad xoolo badan ay ku dhinteen dad lama soo sheegin ee reer baadiyaha sida weyn u saameysay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال هذا إنتان كجوابين waxaan jeclaan lahaa inaad tilmaamo abaar inay dhacdaa hub maaha sax soo noqnoqotaa sidoo wada laba xilliba ama afar xilliba labana abaar yihiin labana barwaaqo yihiin bayna leenahay laakiin abaartii sheegayna waa markay xid intii la yaqaanay ay ka badato waxaan filayaa marka sanad dhaaf ayay u timaadaa abaartan oo kale waxa kala weynaato maray de gobollo gaar ah saameysay iyo maray dalka una saameysana way leedahay waxa se runtii de ayaan dara ah in markaas loo ororday qorsho maadaama wax soo noqnoqonaya ay tahay muddo dheer soo noqnoqonaya oo laga yaabo intii dayni muxuu ahaa taariikh dheer ay leedahay
magacyo badan oo ay leedahay gobolada maxaa dadka Soomaaliland degaan gobolba dee waayihii adaga soo maray magac buu la baxa magacyo badanna ay ku jirto maxaa halhaynteena ay ku jirto abaarahaas ay leeyihiin runtii waxa ayaan daraa inaan qorshe joogto ah oo maxaa loogu talagalo meel yahay oo arrintaa u xidhan waayahay qorshahaan soo noqonaynaa insha allah taas waa taas arrinta laakiin sida u dareensan tihiin dee kole horta dadkaanu ka mid nahayo waa dareensanahay dadku waa waxna wala reer Soomaaliya horta waa qoys oo dee waliba ninka lagu tuhmaya uu sii dareen badan yahay oo dee muxuu ahaa dee waa halka loo soo cararayo meeshii dee wax lagu tuhmaya laakiin dadku imanayaan oo markaa culayskii baa dee ku hayn jiray Soomaaliya waa dad isku nool iyadoo taas jirtay haddana markay abaar timaado dee baahidii baa dee badanayso qofkii culays fara badan ayaa fulay sidaa waa u saameynaysaa dee qofka dareenkii waa ehelkiisii iyo qoyskiisii si kalena waa u saameynaysaa oo dee ninka ganacsadihii dee dadkan abaarta haysi wax ka iibiya ka ganacsada markaa dee markay abaari ku dhacdo awooddoodii wax iibsi baa meesha ka baxaysa markaa ganacsigiisina hoos buu u dhaca markaa laftigeeda muxuu ahaa sidaana way u saamaysaa dee guud ahaanna runtii muxuu ahaa dee marka iyadoo qofka dee ataliya geed walba gubta way hoos taalo dee ehelkii iyo qaraabadii iyo xigtadii ay la joogaan haddana marka dee la yidhaha gurmad marka la yidhahdo cidda koowaad ee maskaxda kusoo degdegaysa dee waa ganacsatada ee loo yeeraya dee la toojinaya marka runtii ganacsatada reer Somaliland arrintaa way dareysan yihiin diyaar bay u yihiin muxuu ahaa already waa muxuu ahaa dee madashii madaxweynuhu baaq ka soo jeediyay la joogay jawaab fiican bay ka bixiyeen imankana waa u diyaar siday weligoodba diyaar ay ugu wahan jiray waa tahay waan kusoo laamaraya gudoomiye wasiir saacid wasiir ka gudi ahaan gudidiina abaaraha kale in badan baad soo shaqaynayseen in muddo ay markaa magacaawinaydo halkaa wax idin marayaan oo sidee baad hawsha wadaan bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waxaan horta hadalka ku bilaabay intii saameysay iyo inteeda ka ayeen waxaa runtii xusub mudan lafteeda dawladdu way ka jawaabtii horeysay ilaa $150,000 ayaa isla bisha uu baaq u dhacay ee gurmadka loo bilaabay dadkeena Soomaaliyeed waxaa dawladdu ay dhibisay $150,000 oo runtii noqday 4,500 qof qoys 4,500 qoys raashinkooda muddo bila isla markiina yani imaaraadku ma hadnaqayno iyo gadar baa soo jawaabay waxa kale oo raacisay hay'adaha islaamiga ah ilaa 7,300 qoys alla aamanta ay siiyaan waxa kale waxa ku tartay hay'adaha caalamiga ah laftooda oo iyaguna ay kamid ahaayeen NRC iyo Norwegian iyo oo bixiyo 1,810 qoys 3 bilood siinayay raashin gobolka ay ugu badneed awsho awdal sidoo kale Concern World oo iyaguna ah hay'ad Mareykan in kulli 680 qoys bay iyaguna 3 bilood siinayeen German Red Cross iyaguna 2,000 qoys bay siinayeen WFP da oo ay hay'adda cuntada qaranka ay qaabilsan tahayna 10,440 qoys bay inta muddada siinayeen waxay markaa rajaynaysaa in sheegay 15,000 qoys in Sacuudigu ay bixiyaan oo liisaskoodii iyo dadkii baahnaa iyo aan soo diyaar gareynay oo naga diyaaray waa reerbaadiyahan waxa kale oo reerbaadiyaha iyo beeraleyda waayo waxaan ku darayaa beeraleydu waa ku u sii liita waayo sanadkii dhaweeto 2015kii iyo 2014kii laba sano xigayba waxay ay saadaashu sheegtay WFP markay soo xogo runteedii waxa sheegaysay in 2014kiina 10% oo raashinkii soo go'ay noqday 9 la waayay 2015kiina 7% kaliya ayaa la helay 3 baa la waayay taas waxay ku tusinaysaa in dadka u sii baahi badan ay yihiin dadka ku noolaa beeraha ee xoolaha kooxda dhaqatada waxay ku leeyihiin way isku daysto buuxiyeen way xoolii ka soo doolay ilaa tareenka Ethiopia gunteed ayaa soo gaaray meesha la yiraahdo maxaan ku raadayay lug haya soo gaaray oo udubka saacagta saaray waxa la xidhiidhay ka baxay meesha marka runtii gurmadkii dawladda iyo gurmadkii dadka muslimiinta iyo gurmadkii hay'adaha caalamiga taas ku noqday waxaan runtii aan doonayaa dareen ka geliyo in badan baa wax ku yiraahdaan horta ninka islaam baynahay marka dhawaato timaado dhawaatada waxaan uga jawaabnaa sidii Ilaahay uga jawaab madaxweynuhu xukuumadda
inuu 3 sanadood oo 4 sanadood oo abaar intii dawladda ama maartay maamulkiisu jiray ay abaar dhaceen intaba waxaan tukanay roob doon baan tukanay madaxweynuhu maanta tuburco ku tukaday laba roob doonood wuxuu ku tukaday meesha la yiraahdo berbera midna halkan ku tukaday runtii intaas waan xasuustaa inta jeer madaxweynuhu roob doonta in la tukaday waxa runtii dadku ay yiraahdaan maxaa lagu gurmo waa ilaahay loo diiday gurmad waxaan doonayaa halkaas saxo waxa weeyaan deena waxaan ku dad ilaahay ku kalsoon baynahay laakiin haddana waxa la yiri aan ku ilaahay subhanahu wa ta'ala ku muumada aan ku badbaadsan meel barsan saxo runtii inaad dadka wax weydiisataa ceeb ma xaaraanna ma inaad dadkaaga oo dhimanaya cid wax ku taraysa aad u sheegato oo taad wax la soo gaara ceeb ma aha diinta kama hore iman marka waxaan isku dhex wadnay inako ilaahayna subhanahu wa ta'ala sidii yiriday cibaadaysta oo sidii u baaq u jeestay xaq ilaahay oo salaadii rubin tukada ayaa haddana sidaas leeg waxaan raacsanaynaa inaad wala sida ganacsato kale ugu yeelay sida maartay dawladda wax la weydiinayo sida shaqada dawladda wax la weydiinayo sidaas leeg baa caalamka la weydiinaya inay ku soo taageeraan maadaama ay haystaan hay'ado u gaar ah oo xilligaas kala shaqeeya oo dadka caawiya haystaan laakiin hay'adan WFP oo kale wax la leeyahay ilaa hadda si fiican uga jawaabin xaaladda nabaadda iyo hay'ado badan oo ka howlgala dalka ورد أنت خوش شيء إن هذا هذا صدق جارك وبحيرة وأنت شيء WFP بالذات جارهان WFP ويكون كنت هاي هيدينا أنت قرنك لو حتى مثلا حفيظنا لما رأيه راشين كي ما يجي جوه لجيني إلا تكون يأفر بقولي أفر تنقيس وإلا تقدر إلا سيلع أنت ما كوب هسي أي متصدق بلوسين هسي راشين محل كنا ذا قلالن يدرا وما يقابلين. واتاي ودنا سنت وسير مرضى ما كوسون نقول دونا إن حلبان. إذا وعدين هيدي الشرع الدين تيدر. إن دي أمة كستانا وحي سيدي يرسلتي با سيدا قدومي وشيء عدول بيع شيكتا. أي وحي مصيبة مركز سيبك كجبح هذا. إن ورتم حاضر شاد دي عبارك دور عبارات باي ودكي كود عاي أو مربل لي هي مركز ينا قبصدان إن هلا تاكلين هلا أوريو هيبان نعاس. إذا كان قلبورتهن أي برلمان هامبا. إن محد إسليدي إنه قرشها لو بدو. أنا ورت حير بمسمين هذا نرد يا. إن government institution كنا مش احترامه. إذا كلي شيء كرتا أبار وهيئة الليلة نرد محمد مساوار. حير كده ومسميني institution هان. إلى يدو alarm كنتو. أنا جمهور عرب كرو. alarm يدو executive كمية مدحوينها يجيسي غير دوال مقال. وقتها golayaashu laba shir gudoon bay leeyihiin oo midna waa kan imika boor ma jooga kii kalena uu jooga way ka warhayaan oo de anaga lafteedu waxaan personalka u bixinay waan u sheegnay maadaama golayaashu fasax yihiin golayaashu de wasaaradaha iyo hay'adaha uma gacan dhaafayaan laakiin official bay guddi bay soo arki doonaan madaxweyne guddidu magacaabo bay sugayeen wixii taakuleyn ay ka dhiibayaan waxaan qabaa sida golaha wasiirada waxay dhiibaan wax ka wanaagsan inay yana dhiibi doonaan waan ka badanay anagu wasiirada waxa iyagu bixiyaan sidii awalba caadada inoo ahay inay shir gudoonadu ka qayb qaadan doonaan laakiin maaha actin xeer laga soo saarayo oo la leeyahay maanta abaar baa jirta aynu intaynu isu nimaadno إلى مدحوينه وسوء إعلامية وقلياش كعب constitutional صدح قربان declaration سو صار كنا أول مرة عبارته ده الجريل كده عام إلى هو يريتي ونخلى بنها هو عنتي بيو يباد يبيو لكن مرة مدحوينه ورقدنا سوق عبارته constitution ككتها الله باهية لaba saacadood gudahood baan sugaynaa marka madaxweynuhu warqada noo soo qoro iclaamkeeduna markaas oo aan laakiin intaan madaxweynuhu warqadii soo qorin declaration aanu iman alwaqaayatu khayr min al-ilaaj ka hortaga ka fiican marka in la daaweeyo dadkii miyani xeer miidan wax leedahay xeer ma soo sameeyay xeer loo sameeyo dad ma uu sameeyay neerar baa xeerka hay'adan hortaga masiibooyinka ayaa waxaan adigu doon soo dhanay ku wada qoray oo reer waan sameeyay xafiis iyadana inay shaqada isu gacan dhaafaan ma inaan xoojino maanta mooyaan inaanu executive-kii u gacan dhaafno sharciyan maaha imika baaqi waana maqalay
dee waad ogeyd xamar baynu caawinayna waan dee dadkii somalilan oo dhibaata haysato marnaba kama adkaysanayaan golayaashu laakiin waxa weeyaan waxay ixtiraamayaan inay guddiga madaxweynuhu magacaabay official isu arkaan dabadeedna wixii taakula inay ka dhiibayaan ay u dhiibaan iyaga wixii cilaam ay ka rabaan iyagu inaanaan isgarab cararin had iyo goor oo dee institutionku maaha inu isdaba cararee xeerkan aad doonaysaan inuu samaysay haddii abaarka kahortaga ay tahay haddii ay tahay constitutional kan afooyinka waaweyn ee dee declarationka laga soo saarayo dagaalada iyo dhulgariiryada iyona constitutionku ku yaallaa ilaahay ka ammaantay naguma keenin markaa sharciyad uma baahna waxay u baahan tahay inaynu ismaqallo uuno anagu qoladaynu kolba sida baahidaydu ay noqoto waxa qofka technical gacanta kula jira baa inta badan lagu ixtiraamo waynu kala leena shaqada qayla dhaantuna de ma yaro inta nin iyo anaga markaan lacagta bixinayno in personalka u bixinayn kuwa kale oo badanina way bixinayaan laakiin golayaashu fadhi intay fadhiistaan way imanaysaa sidan aad doonayso joogtooyinkii baa jooga qaaraan wanaagsan bay bixin doonaan baaqa waxay sugayaan qoladan hor kolba siday taa noo caawiya expert baynu adduunka inaynu wax barno ayaynu had iyo goor waa laynaga faa'iidaystaa sheekha waxaanu isu raacnay kenya 300 oo kun oo maanta waxaynu caawinaa IDBs lagu sheego oo refuge oo aan adduunku inaga caawiyo oo Soomaaliya ka soo qaxay 300 oo kun reer waliba duhurkii qolqolkiisa oo kuwa fadhiya bariiska u dara waxyaabaha ilaahay dee nagu caawiya had iyo goor ay noogaan marka inagoo maanta aan aqoonsi haysan ayaynu 300 oo Soomaaliya ka yimid aynu caawinaa refuge adduunkuna wax nagu sii reer nabi aadan markaynu inagu wax qabsano ayay waxna tarayaan dhaqaaqii waynu dhaqaaqnay waa ka sheeku sheegaya madaxweynuhu waa lacagtii ugu horreeyay bixiyey tijaartii waa tafadhigii ka kacday waxaan rajaynayaa wiig walba inay meeshu siday baahidu u kala weynta maaha wax laysla sugaya xitaa sida sheeku de kuu sheegi waxa weeye meelba meeshay ka baahid meeshii baad u baahanna waa la gaadhsiinayaa ururintiina way soconaysaa meeshii biyo u baahanna way wadayaan marka khayr baan rajaynaynaa insha allah waayo aragnimadeenu ka faa'iidaysan doonaa waa tahay warwarin waa tahay waan kusoo noqonayaa xildhibaan gudoomiye idinku ka ganacsatahaan madaxweyne kulan buu isugu keenyay oo aad la qaadateen oo dabcan dee ku saabsanaa abaartan iyo sidii aad gacan uga geysan lahaydeen ka hor kulanka madaxweynaha udan la yeeshay iyo kadibba ilaa hadda ma jiraan wax taa kula ahoo idinku ka gudi ganacsatahaan ama ganacsatahaanba idinku oo midaysan ma sheegino shirkad way jirtaa shirkado gaar muuqday oo la yiri meel heblay biyo gaarsiiyeen laakiin idinku ka gudi ahaan ma jirtaa ilaa hadda wax taa kula aad dadka abaartu hayso gaarsiiseen بسم الله الرحمن الرحيم ما jirto waxaana waanu gaar u ururnay ka ganacsi ahaan oo anagu aanu fulin ma jirto raggan qof wax u ballan qaadaya ayuunba ruuta ganacsigu ka kooban tahay marka madashii madaxweynuhu joogay dee raggii joogay ninba taagii wuxuu bixi karayay uu ballan qaaday ragga kalena waa la wacyigeliyo way og yihiin lagu soo socdo waana u diyaar laakiin saan horeba xusay sanadkii imanka dadkii dee qof kasta oo gobol Somaliland ka mida baahiyo ku haysato qof ganacsato ba ehli ama xilibs meel iska xidhay marka taas iyadu dee codsina ma sugayso baaqa madaxweynaha kuma xidhna waa arrinta ehel loo yahay oo dadkina dad isku noqdo waa qoys beeruna oo taas way iska socotaa waa tadee mushkiladu inay dee xuduudii ka baxdo dee controleysa ee haysa inkastoo mushkilada ugu weyn tan abaaraha kale waxay ka gidsan tahay waana saddex jirsatay oo dee laba guya laba dayro baan roob aan la helin xilliyadii roobabkii la sugi jiray heli jiray aan la helin waxaanay ku dhacday waliba ku sii xoogan tahay oo 90% abaartu ay ku xoogan tahay goboladii wax soo saarka ama xoolaha nuulka loo yaqaan ay joogeen marka arrinta mushkilada tabalaarisa imarka waxa weeyaan oo dee mesela gobolada xoolo dhaqatada joogan oo kaliya gobolada wax soo saarka ay badbaadaan raashin baa laga heli lahaa calaf baa laga heli lahaa imarka meelihii dee kaydka loogu tagi jiray raashinka ama calafka ayaa dee 3 sano wax ka soo bixin hatta xoolihii dhoofayay ma dee berberka dhoofayay wixii loo dhigi jiray
cawsaha ama balaha dee ma jiraan gobolladii kasoo bixi jiray marka faahfaahinta iyo hordhac ahaan baan anaguna bulshada u siin doonaa wasiirkuna inoo sheegay maxaa idin qorshaysan hadda madaxweynuhu waad kulanteen waxaad leedihiin wax hore oo anagoo ka midaysan maanaan samayno ilaa hadda oo gacan aan bixinay ma jirto aanu mid kana ay ganacsatahaan maxaa qorshaad wadaan kolley qorshuhu dee muxuu ahaa arrinta haddii muxuu ahaa dhowr jeer meelood laga maamulo juhdi wara uu qaybsamaayo oo u macno beela waanay muxuu ahaa sidii u habboonayd ay u fuli lahayd ugu fusho marka runtii dee go-aanka madaxweynaha ayaanu waafaqsannahay waayo waa lagu midaysan yahay ganacsatada lix xubnood oo ganacsatadii dee hormuudkii ganacsatada somaliland guddidii jambarkana mee 7 xubnood ayaa ku jira culimadii baa ku jirta waaweyneed oo dalka ayaa ku jira wasiiradii ay khusaynaysay baa ku jira marka waxaa qurux badan wixii dadaala ee gurmada in lagu mideeyo halkaas laakiin haddaan anagu jambar ahaan intaan dee xubnuhu yeedhaado muxuu ahaa dee jambarkii iyo ganacsatadiiba waxaad helaysaa la yidhaahdee kolleyba innagaa laynaga qaadayaa dee 10 baabuur raashan dadka usoo qaybin oo tansiiq iyo xidhiidh aanu jirin macno samayn mayso waxa fiican wixii la helayay in la urureeyo dabadna la qorsheeyo oo baahidii dadka iyo siday u kala dhib badan yihiin la qorsheeyo baahideenu way weyntay dhibaataduna way ballaaran tahay mana filayo muxuu ilaahunbaa maaragtay dadka wax kaafiya siiya waxa dadka laga soo tuujinaya gudiyo dabadba baahida dadkeena ma daboolayso laakiin waa inay jirtaa dee cid u xil saaran oo qiimaysa oo sida loo kala liito wixii la soo helay ugu qorshaysa waa tahay waan kusoo laabanaya gudoomiye wasiir ma jiraan ilaa hadda deegaanada la gaadhsiinayo gurmadka deegaanaad is leedihiin sidii ay ahayd baa loo gaadhsiiyo wax ku filan baa la gaadhsiiyey oo biyo iyo baad kulley biyaha u badan waxaa loo baahan yahay ma jiraan ilaa deegaanaad is leedihiin wixii si baahida ay qabeen wax ku filan baa la gaadhsiiyey hadda bismillah runtii horta ilaa wax gaadhsiiya oo dee gacanteena lagu baahan beelaa ismalihii maanta gobol sidii loo baahnaa ay wax wada gaadheen waxaan sheegaynay imka gaadhay in ka badan 20 ilaa 30 kun oo qoys wixii loo turtuuray waa sifsifkuun waa ku qaboojis ama waa degdemis noocan ma oran karto mar kastana way sii kordhisay oo baaqi markuu bilaabmay bisha 7 July 2015 ayaa dhawaaq madaxweynaha ku bilaabmay ilaa maantana waa la wada laakiin haddana dhinaca ka sii fidaysa oo wixii baahidii in roob maalmeeto xaysoo kala ka deeyay xeebaha wadii maqlaysay berito yaa taqriiban la 3 bii ka hor warkiisu waa lagu jabay dabeetana intii waxa noqotay in agta la saaro marka meelihii runtii saaw maxamed shukur sheegay halkii wax soo saarka in ku badbaadi jirnay ilaahay soo ugu badbaadin jiray ee goboladii beeraha iyo wax soo saarka lahaa ayay dhibaatadu aad ugu badan tahay wada runtii keentay inay wax soo cuslaadaan xoolo dhaqatadu way gurmataa xoolaha ka dhintaano iyaga inta soo hadhay ilaahay barakeeya laakiin markii marka beer joogay beertii ay 2 sanadood iyo muddo ka badan aan waxba soo saarin oo boqolkiiba aad oran karto 90 way baaday ama rabbi ma helin waxa keentay inay sii adkaato wixii la siinayna aanu muuqanin marka wixii la bixinayay waxa si rasmi ah looma gaarsiin wax walba laakiin waa lagu sifsifay meesha waa la gaaray naftana waa la gaarsiiyay alxamdulillah ilaahay mahadiis maanta cilmo dhamanin xoolaha dadweynaha dhamanin laakiin sida laga baqayo ilaahay waa naga badbaadiyay waxa la rajeynaya bisha saddexaad ee roobka la helayo insha Allah inkastoo dad badan oo saadash yiraahdo waxba fogaatay laakiin taa ma aaminsani waayo inaku ilaahay waa u baaqnay oo saabun tukanay si sumu habeen yeelay ilaahay baan xasuusanay ilaahay wuxuu xasuusta oo hays ilaawina ilaahay markuu ka sheekeeyay abaarta sababta kantana waxa ka tan macaasi laakiin dadku waxa ka daweeyay meel kale tiraado durada ka daweeyay dawo khaldantay marka ummadeena dawada rasmiga waxa weeye ilaahay u laabtaan oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ay rumeeyaan oo ay dunuubta ka soo laabtaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ma jirto dhibaato taba ilaa macsiba ku timaada oo macsi ay ku timaada oo ma asalkum shafa idha kasabat aydiikum ya'fu an kathiir shay asiya ma jiro dhibaato ilaa dii asiya wuxuu ku yimaada waxa kasbatay gacantu kasbatay ee dunuubta oo dadka la dulmeeya wala dhacaya wala isdilaya maxaan ku hadaayay wala isboobaya ee dulkureeyay macsidii kale gaargaarka ahayd bay u dhacaysa inagoo arkayno maqlayna haday tahay khamri haday tahay maxaan ku hadaayay khamaar haday tahay maxaan ku hadaayay dhibaatooyin kale oo maartay
kala duwan oo runtii meelo qaarkood ay la soo shacbaxaya taasoo horta keentay markaa ilaahay inuu dareen dareensiinayo oo ilaahay subxaana wa taala lacallahum yarjacuun inay soo laabtaan darteed ayay u dareensiinayeen weliba dhibaatada haysata marka runtii halkaasna inaynu wax ka daweyno waa laga maarmaan lafteeda. waa tahay xildhibaane sidaad is leedahay abaartan ilaahay baa horta naga saari karaya waa lagaga bixi karaayo horta dadka waxbaa loo gaarsiin karaya sida kama tahay wax loo gaarsiin karo waxay ila tahay daraasadda kolle waa hayaan guddidu iminka meeshii baad u baahan eedda u baahan dee matalan iminka nugaashoo kale biyo qaraar iyo waa laga helayaa biyuhu laakiin baadka sanaag bari oo kale iyo dee kolba sida baahidu tahay saylac oo aada looga qaylinayo iyo awdal iyo hawdadkan oo dhan meeshii waxaad moodaa meelaha qaarna in biyuhu marka laga reebo nugaasha mooyaane gobollada kale inay biyaha nugaashan in baadka uu ama xeebtan meelaha qaar baa jira baad iyo biyuhiiba ay matalan xeebahoo kale aniga waxay la muuqataa aroor walba ribood bay helaan aroor dhaweydoo aan anagu la kulanay guddida waxaa u warramayey neerad maxamed muuse oo uga warramayey meel walba subaxaa waagii wuxuu la beriyey rag hawsha ku filanna weeyaan dee waxaynu maanta inagu isku tashanayna ee laleeyahay madaxweynihii hormoodka inoogu yahay bixiyeyna waa la bilaabay imikabo saaka waxaan arkayay iyadoo khayr allaha siiyey ee wasiirkii maaliyadda oo guddidan ku jira uu warasaabadii saylac oo doorashadii ka socoto iyo diiwaangelintii iyo maxay ahayd bariga sanaag iyo meelaba meeshay ka baahi weyn tahay dee meeshii biyo loo sii dirayay iyo wax warasaabadii oo ay waan arkayey marka haddii goor technical cidda hawsha le ee ku dhex jirta inaynu ku gacan siino oo ku garab joogsano iyagu way wadayaan oo dee isla sugi maayaan oo odhan maayaan inta wixii la wada helayo hala fadhiyo laakiin maanta inta odaygu u dhiibay durbade waa kuwaa sheekha kuu sheegayo oo ta sacuudiga ka imanaysa doonta soo sida waxa ka fiicanta tijaarteenu bixinayso baa ka dhow wuxu way soconayaan xildhibaanada iyaga kuwaanu bixin doonaa ka mida shaqaalihiina kuwaa bixin doontaan baa ka mida waxa inagu aynu gudaheena haysano ayaa horta waxa soo socda aynu ku sugi karnaa almuhiim waxa weeye tan soo noqnoqodka waynu tashan doonaa biyahan ina dhaafaya haddaynaan qabsan oo aynaan isku tashan ilaahayna kaashan oo biyaha aynaan qabsan oo aynaan wax beeran xoolahana calaf u beerin inaynaan biyaha badda gelaya qabsan dee way sanad walba way imanaysa waa biyihii bayna dhaafayo sideedii noo dhaafaya markaa taan bixinaya waxa wey horta maanta ta taagan wax ka qabsan midna waa ta maanta taagan midna waa ta mustaqbalka ta mustaqbalkana dee sanad walba sidan ku jiri mayne dal dhan baynu ku dhisanay caqli iyo maanta maxaynu qabanaa berri maxaynu qabanaa way iman doontaa baan rajaynayaa inaynu biyaha ina dhaafayo qabsan waa tahay guddoomiye kolley guddoomiyihii ganacsatada rugta ganacsiga waxaa sheegtay in kayd loo baahan yahay oo 2 jeer kusoo celisay dadkuna saas ay aaminsan yihiin idinku ka ganacsata ahaan kolley ganacsada kastaaba marka ay xaalada timaado duruuf timaado dee deegaan buu kasoo jeeda marka waxaa imanaya culays gaar ah oo deegaankiisa si gaar ah uga saaran yahay culays guud oo dadka ka dhaxeeya miyaana idinla habboonayn laftiinu inaad samaysaan contribution ama sanduuq aad ugu tala gasheen ummadan aad ka dhex ganacsanaysaan marka duruufta xaleesho aad inaad la gaadhaan halkii la odhan lahaa wax la soo ururiyo oo sidan oo kale aynu isugu wareegi lahayn absolutely waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay qorshe dheer oo mustaqbalo aynu ku talagalada awaartii inay imanayso roobku markuu inoo do aynaan iloobin oo marka roobku inoo daasayna barwaaqada maxay maalinta xubnaha soo socota aynu wax ku sii talagalo waa loo baahan yahay laakiin mas'uuliyadda dee waxay u baahan tahay dee cid mandated oo dee u xil saaran inay jirto sanduuqa wax lagu ururinayo inuu yahay dee sanduuq qaranka ka dhexeeya oo lagu og yahay marka waxay u baahan tahay dee talo fara badan
hareeraha la iska idinku taago soo mandate ma tiridin oo rugti ganacsiga ma tiridin dee waan nahay anagu waxaan mandate ku ahay inaan danta ganacsatada ka shaqeeyo guya xilkayga gaar ahaaneed xilka gaar ahaaneed inuu mani waxa weeyaan ganacsatada iyo inaan dee wixii warma loo sameeyo ها وحي عرقلات iyo caqabad hor yaala iyo wixii maslaxadooda ka shaqeeyo laakiin tan طبعا maadaama cid wax lagu tumayaano nahay ee xil waa naga saaran yahay hadii de qaranku isku raaco la yiraahdo rugta ganacsiga sanduuqa ha abuurto oo ha maamusho hadii de ay ka tahay sanduuq rugta ganacsiga ay maamusho kaydkaas iyo qorshaha dheer ha lagu raayo lagu ogaado in kulli baa naga qaaday waa arrin waxaan kaga tagay arrintaas sanduuq la sameeyo waa sax dad lagu kalsoon yahay loo dhigo waa laba ha ku ekaado arrinta abaaraha baahidan way fara badan tahay مثلا مشكلات بدل كنا جتوا ما كمل وح لجوا قاعد لكن الميزانية كلها تحلى وقاعد قوم بدن مركز لو سويه صندوق يروح كتير وهيك استوى الله يمشي وين هي صندوق خاص وأبارت يكور تجيب متى كلا ده العقل لما ده وين بتشرا قرشة وحلا أورنا يمحل وقوانا يا أبارت اللي جوه تجيب ودي كشيء تعال الوقاية خير من العلاج إن وحلا الدوية وحكاها بون لقاه ارتجحنا كمركب وربا in marka horeba la qorsheeyo de daraasaad la sameeyo maxaa abaarta keenaya waxaana ugu wacan xildhibaanka waxaan ku faahsanay roob baa inoo daa raxmaad baa inoo daa raxmaad badan baa inoo daa dadal badan oo inaga wax soo saar badan bayna ka roob badan inagu roobkaas wax maynagu keena xaalafuna wadooyinka markay bateen ciidda nafaqada loo buqaadaa boholana wuu jeexaa dabeedna dhibaataaba waraa burkii iyo geedkiina u qaadaa sidaan ugu dhaaf marka nimcadii ilaahay inoo keenay niqamay mararka qaarkood inagu noqotaa markaynu ka faa'iidaysan weyne waxaan runtii waa arrin ballaaran oo adigaaba dee tilmaamay ku fogaan maaye waxaynu u baahan nahay tan insha allah weerka bixii ilaahay intii ilaahay ugu talagalay dad iyo xoolo inay ku baxaan baa ku bixin intii ilaahay uu ku talagalay inay ka badbaadaanna way ka badbaadi waxaa loo baahay bixin markay dhammaato iyo imankaba in la diyaariyo qorshe abaartan way soo noqonaysaa mar iyo laba iyo saddex iyo afarba way soo noqon doonta sidaynu arki jiray ilaahay naguma keeneen in lagu talagalo maalintaa xun ee iman doonta أصارده واحد هذا القرش الأسود القرش الأبيض اليوم الأسود شنو أسود بسط يري وحلاك هاي الصلاة عب ما أنت بدو مركب ما أنت بدو إنه صار نقطة وحين هو كيد سري إنه تشرو كيد كلمة هاي قرشانين إلى مثلا ما ده بعيد ربط هذه مثلا ده واحد عام وطبعا اللي هو تاسع أما مثلا وأنا كودك سنت مركب واحد baahidiyadu jitooy kala xoog weyta baahiyo waxa laga yaabaa halkii loogu talagalay gaarsiin marka loo yeeyo meesha wax ku jira martida baa ku badanaysa waa cawooday jiray waxa halka lagu hiday la garanayo wuxuu yahay maanta oo kale inay tahay wixii maanta ka gedisan aan loo furi karin oo ka xiran tahay qorshaheeda iyo nidaamkeeda iyo dadkeeda maamulaya dabcan ku talin maayo aad muxuu ahaa wajahada inay ganacsato ama cid kale maamushay dabcan dalka kolba cidii arrinkiisa haysa ay sanduuqayna waa tahay aan ku soo laabto barnaamijka gabagaba ku dhow وزير بيها بوشي سعررية إلا قياستي أفر بلوضة كمدا سنة كيد كيد كاليلية واللو بهية horta miyaan kaydkaas miyaan ahayn in lagu dhaqaaqo mar uuna ummadda kayd loo sameeyo iyo biyo qabatay bismillah waa arrin runtii isku waafaqsanay in kayd la sameeyo oo qorshe loo samaysto arrimaha noocaas oo kale abaaraha iyo dhibaatooyinka daba joogga ee nagu dhacaya laakiin mid weyn ogaana dhammaantiin dal Urdun ayay nahay waxaanu dal wixii soo gaarayba martay haantu maad waxay sagal yiraahdaan wax afka martay lagu cararayo runtii miisaanada qaranku sida de xildhibaanku ka warhayo 250 milyan bay gaadhaa oo dollar sanadkii marka waxyaalaha runtii ugu badan boqolkiiba 80 waa shaqaalaha iyo mushaharka inta wax lagu maamulo ama wax lagu gaaro ama badalka lagu qabtaa oo waxa soo haray amba boqolkiiba 30 ka amba 20 ka kama badna marka waxaad arkaysaa qarankeena dhamma waa qaran ku jira ilaa maalintii aan bilownay dalka Soomaaliland la amaamuday ee xildhibaan sheegay maanta deerkan idaacaduba uu ka sameeyay yahay arday keenay xabad jaajura weliba idin ku jirna qorshaha soo marna ma saagana waayo qorshayaal badan baa loo yaala daawan meelo qorshayaal daawan baa jira qaar imka oo bilaabay baa bilaabeen imaaraadku baa ka bilaabeen maxaan ku dhahay xubinweynay area waxa jira butuchiki ahaayo lacag badan iyo maartay UN ku tilmaameen oo baahan intuu maalkeena gashano maal gashano
qorshahaas naga maqna laakiin si awoodii ayuunba meesha ka maqan laakiin qorshuhu intii loo waa aarban wana garanayna dalkan wuxuu ku dhisan yahay qorshan kusoo gaadna halka waxaan kusoo nidaam kala dambeyn waxaan u dhisayay marka amnigii iyo dhinaci maxaan ku raadayay bal qofku inuu nabad horta helo si uu u noolan karo nabadii weyn bijin alxamdulilah ilaahay khayr siiyo guurtii hadday tahay hadday golayaasha tahay hadday tahay dowladda dhaxad ama maxaan ku dhahday hadday tahay maaragtay dowladda maaragtay dee maamulka haysa dee nidaamka iyo kala dambeynta gacanta ku haysa oo runtii dadaalkeeda aan ogna hari habeen marka waxaad oran kartaa meel garan waayeyna waynu gaari la'nahay meel garan waayeyna waynu gaari la'nahay oo awoodin ku gaari lahayn ma inta badan ma taalo waxaa runtii anigu aan u arkaana in haddii ganacsada saa maanta dee ku bilaabayno wuxuu hayay guddiyada kala dambeeye loo saaray khaasatan arrintan waayo guddi ganacsada waa markii labaad ee loo baahday iyaga iyo maxaan ku rahday culimaa udiinkuba inay ka qayb qaataan qaada ururin heer qaran ah oo waataynu gaarsiinay koonfur hadday tahay kenya iyo hadday tahay soomaaliya ba waynu gaarsiinay waa markii labaad loo baahdo markii intii dhexe ay aan abaarta culays lahayn guddidii joogtada ahayd ee abaaraha ayuunba hawsha waday oo runtii markaa waxaad biodhamis iyo meel gaarsiiyay ay ahayd sanadihii hore laakiin sanadkan runtii say u adag tahay darteed iyo degdegaan sida laga gaarsiiya ayaa keentay dadku intaanay magaalooyinkan ugu imanin oo aanay ambulance boobin ama maxaan ku raadayay baahidu intay kasoo ninkii dabadii kasoo kaxayso si daba dheer oo kale waayo waxaa la sheegayay maanta nin odayo sheegayay wuxuu lahaa imka abaarta galbeed ka jirta iyo erida maarta wax saarko oo ka xumaaday waxa loo baxay oday ma arag sidii ma daba dheertii kale waa timi ka helaysay magaca loo bixiyey magactan loo bixiyey waxa weeyaan oday ma sheegaan inta odayaashu galbeed odayaasha joogaa xilligan joogaa maba aragba yani 8 sanadood waxaad oran karta maba arag abaarta noocan oo kale diinta ay maanta joogo waa 8 iyo wixii la mid ah inuu wax garan karaya marka 8 sanadood wax abaarta ka dhacday galbeed ama maarta gobolada wax soo saarka laba garan maayo taas markaa waxay keenaysaa runtii inuu qorshaha la isugu yimi marka oo ah marka in dhig joojina oo degdeg wax u gaarsiiya laakiin qorshayaashii ahaa in biyo la xiro qorshayaashii ahaa in maxaan ku in beeraha laga shaqeysto hal iyo habeen de waxa soo wasaaradda qorshayntii wasaaradii beeraha wasaaradii xagal xoolaha wasaaradii maxaa u dhirtay daaqa iyo rilmiga ilaalinteedii in kasta wala dadaalaya oo wadarka toode hadii baclo tojinayo hadii maxaan ku baad la xirayo hadii maxaan ku dhaaday seerayash dib loo soo celinayo hadii dhulkii beeraleyda ahaa dib waxa soo dibeerida sharci wanaagsanaa aslan oo ahaa la raadinayo dib loo beeri intuu way socdo qorshaas hadi habeen soconayaan waa tahay daawadayaal weli waxaynu bartamaanka ka jirnaa ama gabagabadiisii ku jirnaa barnaamijkeennii arrimaha bulshada qayb ka mid a qaybo badan oo aan ugu talagalay inaanu kaga hadalno abaarta dalka ka jirta barnaamijka abaaraha aanu kaga hadlaynaa waa barnaamijyo dhowr ah oo taxano noqon doona haddii ilaahay ka dhigo waxaanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay telefishinka qaranka gaar ahaan barnaamijka arrimaha bulshada inaanu dadka abaartu saamaysay deegaamada ay joogaan muuqaalo ka badan muuqaalada warbaahinta aad kala socotaan inaanu kasoo gudbino oo kamaradooda iyo mikrofoonkooda ay iyagu leeyihiin aanu bartaa ugu geyno maadaama telefishinka qaranku yahay telefishinkii ummadda xildhibaan gabagabadii fariintaada aad u diraysid cid kasta oo dee ummadda somaliland ka mid ah waxay tahay horta inuu inagu isu naxariisano markaasoo ilaahayna inuu naxariisanaya mid waliba wuxuu kari karayo inuu la gaadho guddiga u keeno dee rag hawsha ku filan ay yihiin iyaguna baahiyihii maadaama ay ka warhayaan kolley sida dadku u kala liito way u kala gudbin doonaan midka ugu weynee fariintaan diraya waxa weeye iclaamka contributionka ugu weyn waxaa laydinka rabaa idinka inaad iftiimisaan inaad guddida hagtaan inaad publishinka samaysaan inaad baahida xitaa hadda gobolladii waa wada joogtaan maanta contributionka ugu weyn inaad ka qayb qaadataan midiyaha dowladda u nahay kuwa kalama sida dhibaatada u kala liidato sida dee baadla-aanta iyo biyuhu u kala liitaan sida marka wax loo geeyey dadkii wax loo geeyey aada u tusaysaan dadkii wax bixiyey markay arkaan wixii ay bixiyeenna dadkii gaaraya nin waliba u kordhinaya sidaa gorbajoogii u wacyigelin lahaydeen iclaamku ciyaar maa
marka talada aan bixinaya waxa weeyaan inaynu inagu isu naxariisano ilaahayna markaasuu inoo naxariisanayaa waladiina iclaamkuna shaqo badan qabataan oo aydan u diyaar garowdaan roolka ugu weyn inaad ka qaadataan qaybtiina kelina qaranka iyo kuwa madax banaanba gudoomiye fariintaadii ugu dambeysay abaarta kasoo kolaysa sixir barna waa jiraay bal ganacsatadii waxaad ugu baaqaysid ee aada u sheegaysid iyo ummadda kaleba horta marka hore waxaan ku baaqaya dhammaanteen ilaahay aan noqono ilaha la toobad keeno abaartu waa ciqaabtana macsi baa keenta sidii wasiirka diinta iyo qaabta macsi badan baa Soomaaliland waliba caasimada ka jira marka guud ahaan reer Soomaaliland yar iyo dumar madax iyo mijo ilaahay la toobad keeno qof waliba macsidu ku jiro isaga ilaahay way sugay dadka masaakiinta dembigaad gashay baa lagu ciqaabayaa faraha lagala baxo guud ahaanna dadka reer Soomaaliland waxaan u baaqayaa in isu naxariisano markaas ilaahay inuu naxariisan si xilbaa ku yiri ganacsatada de waxa la xil gaar ah saaran de Soomaaliland warshadana male baafrool male dayta haysan baa dadka ka dhaxeeya taa haysan marka Soomaaliland waa taa haysataan marka dadkiina muxuu ahaatee ganacsi si socon maayo oo de ganacsi de bulshadana inuu ka ganacsi baahidooda ay ka ganacsan marka maanta waxay iibsan kari maayaan la ganacsan kari maayaan ana ma hinno sakay iyo sabaqad iyo wax la isku darabo gudiyadaas markay yimaadaan si xilkaasnimaha loo soo dhaweeyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala naxariistiisa bay barayaan watahay wasiir intaanad kelmadaadii fariintaadii iyo gabagabadii aynan gelin barnaamijka kolley dee waa ciqaab ka mid ah ciqaabaha ilaahay in duruufahan oo kale abaaruhu ay yimaadaan adigoo barnaamijka ka faaidaysanaya ma jirtaa dhaqan aad is leedahay ummadiiba kusoo kordhay ama wax dunida oo imanka aad si gaara ummadda wacyigelinay bismillahi raxmaan raxiim runtii waxa ummaddeena kusoo kordhay oo dee macsi weyn oo ballaaran macsidaan naqaanay khamradii maxaan ku dhahday warwareegii dhalinyarada amba isla bixii maxaan ku dhahday hadda la kurooyahay marmarka qaarkoodoo sida munaasabadii habeenkii dhawata laqaawa habeenkii maxaan ka diinay habeenka jacaylka oo runtii sharxnay sharciyan iyo diiniyan sida ay u khaldan tahay iyo inta munaasabad marka hore kristaameed ay ahayd oo niweeo kristaana oo valentine loola jiray marka waxyaalahaasoo kale inuma badna oo waxaa weeye markii sanad soo marto laakiin tan joogtada ah isla baxa iyo xishood la-aanta dumarkii noocan ma qaarkood ay xijaabkiiba ay ka tuureen oo dhalinyarada qurbajooga ah ama qurbaha naga timi oo runtii wadooyinka qaarkood la yaqaano ay istaagtaagaan oo garanayso inay dharkii ay yaqaanay fadfaadka ahaa yar balballaadna oon ahaynba maxaan ku leedahay xijaabkan lagu yaqaano hablaha waadada ah ama ahaa dumarkeena hore garbasaarteedii labadaryaada ahayd ee indhashareerka lahayd ee maxaan ku leedahay dalkood balballaadnaayeen yani inay dadka kasii yaro ilbaxayaan oo waxaas wax laga tegay oo dhajis iyo googarood ama maxaan ku leedahay suwaal keliya ka hooseeya iyo cabaayad yar iyo waxa hadii maartay dee dabish ka faydo qofkiiba uu jirkiisa muuqanayo oo inta badan dadka aan ogoleyn oo markii waa laga dareemo dhalinyaradaas marka noocaas sameynaysa iyo marka qaarkood meelaha qaarkood dee la sheego dhalinyaro ku caweynaysa oo runtii dabagal weyn guddida maaha anshaxa iyo qarankuba ay daba socoto inta badan oo si muuqata u sameyn waxa hadda ka qarsoon yihiin dambi lama yidhaahdo dambi isagoo ah dambi la soo ciqaabi aan noqonin laakiin marka soo shacbaxo ee muuqdo markaasuu adag yahay oo ilaahay ciqaabtiisa keenaya marka taas waxa dhinacii runtii muxuu ahaayay waxa la kado dunuubta soo shacbaxday dulmiga kamid ah dhulka isku dilay kamid ah alxamdulillah ma dalkeena dad qasaasti ka fushay oo aanu aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay oo amarkii ilaahay inuu fulinayo aqbalay runtii dadaal badan la ka gaaray dowladda ka sameysay gaar ahaan madaxweynuhu waxaan leenahay runtii taas waaba meel fiican maxaa fiican soo gaarsiisay laakiin dhulka loo bareeriyo ee la isku dulmeeyo ee xabad la isku dhufo naf lagu saarayo taas waa kamid dunuubta waa qof wax ka ma jiro naf la dilay wax ka ma jirto ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaaraan ka dhigay qofka bilaadna noloshiisa la siiyey in noloshiisa lagu qaado sabab la-aan iyo iyadoo maxaan ku leeyahay amar ilaahay ama la fulinayo ama xukun islaami la fulinayo aan ku bixin waa adag tahay nafta bilaadmiga in la iska dilo
amba si wadaan ha loo dilo wada jira amba qof ha loo dilo amba hala qariyo dilkaas marka dilkuna naftiisa dulmiga la isku leeyahay yaa dhulka la isku dulweeyaan waa ka mid duruubta waaweyn maanta aynu ka cabanay maxkamadaheena runtii buuxiyey sidoo kale dadka markhaati banaashaas ka sheeganaya maxkamada buuxiyey laftooda ee tegayeen iyaa la gubtaa laga warqayo iyana gacan u qabto oo runtii loo dadaalo cadaaladda sida maartay garanka guud ama xaakimka ama raahdo garsooraha guud ee qaranka oo ama dadaal badan sameeyay isagii wasaaradda cadaaladda oo dhammaan kormeer ku mareen jeerashii ku xidhnaa waayo dadka jeel ku jira qaar madluumiina qaar u baahan daryeelkan u baahan oo ah anigu wasaar ahaan waxbarashada qayban ka qaadana oo mikrofoonada lagu xidhno masaajidada iyo jeerasha oo lagu wacdiyo habeenkii oo ay dhegeysanayaan wax fara badan baa runtii ay kartaa oo wanaagana waa jiraan xumihiina runtii bartay waa soconaya dawaana siraac u dhaxeeya baadilka iyo xaqa baadilka dambiga jiraya ilaa yawm qiyaamah way farintaadii ugu dambeysay wasiir adigoo mahadsan iyo baaqi abaarta ku aadana bismillaahir rahmaanir rahiim baaqi abaarta waxa weeye horta saa culimadu sheegaan bayda xildhibaanka iyo maxamed shukri shaqo culimo waxa weeyaan الرحمن الرحيمون يرحمهم الرحمن نبي يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تذكر نحرسته إلهي لو نحرسنا ما أنت وما أنت نحرسته ما أنت وما أنت المحن كله وحسترك ما أنت وما أنت قفك وحسني أنت نفتي سيلاو ولا حسني وحنا نفرن ما أنت ذلك الناس ومالان أنا وحنا الله هدي ما أنت لا مليون أو دولار يسكرين كرنا ويقولوا خدنا محمد وكور كرنا ويذكر وين نقعنا هدي ما أنت المهير مساعها هل يوم مساعسة وديبو هدي أرضك شغالهنا هل بالبحيو أما كيرا يبغون كم كنت ما بحيو وهل بلا هدي محن كل هذا دينه نجود إيجا استذا يودك عادي سوق شو هدي قفل بحال دولار ما يديبو هل دولار ما أنت أفر مليون دولار سمعنا لنا كان بربطور وقد جمعت قف برلاوي أو هذا يسمين يقفير فهذا لا يمكن أو دولار ما تقدر كرينه وحن قضاء إنبات يبيو أنت له نسوق جاريو أن كوسي فلان كرتو ما أنت مكان وما أنت حريسته وما أنت عاونته وما أنت إله سبحانه وتعالى بدك وكل امتحاني إلى شهر كذا يوالك إهل كذا سيجوري سيجارة أدو حترته تاسونات كيني سمرك إله ده حريسي سنة إن السيو إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إله سبحانه وتعالى أنتوا عاونة سنوين عاونة أدونك هو عاونة أنتوا ولك عاونة إله هو عاونة marka inagoo ka ku socono oo baaqas ma baaq in ka cusub neey maxamed sallallahu alayhi wasallam kale abaar dhacay inta qodobtii iyagoo gaajoonaya masaajid ku yimaadeen inagu wareereen intuu nin isbedelay weeyaa caawinaya nin baa ka caawinta gurigiisa tagay ayuu keenay muhaar raashin marka sunnadu hordhigay nabiga hordhigay sallallahu alayhi wasallam marka hordhigay ayuu nabigu farxay marka saal nin wada carabi soo qaaday bas wax la dhismay yaani tuul dhan oo haluula oo raashina iyo tuul dhan oo dhara رسول تقيم رسول الحديث عادي هذا عجيبة أي مكان شيء يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعدهم أما كده من يحول قف السنة ولا سن بالعابة بل قف كستون ينتبه بحياة يحول لي حديث كسوق لي السنة ولا سن قبتين أنت كده يتا يلب حس أنا أجر كذي أجر كذي مسلمي كيس اللي هو كان كده يقول حوالي بس أجر كيس كسبان كاح بحي أنا أجر كلهم مقسمين بركان فرصة ونكسن أو حستركية وفرنا سنة ورنتي ميديا دنمر مساعد شيء جزاك الله خيرا وحبان سوتر دونه ما تنتي صدق قرآن أنا فرين دري علماء دينا وفردا قلت منك تاجر كايلا هاي ما أنتو كله لعبتها يدد كيسي وعبارة هايسو صدق قفل هاي ما أنتو كله ويلا إنك عالم كاهي قرآن كإيو حديث تقرني إلهي ويجي وحرمنا يا مالنتي أبارت العالم هو شيء ذلك أبارت بي صدقات بي حسنات منك تأثير كي العقد حيستنا إلهي ويجي وحرمنا يا مركي كوي أبارت وحشارتي سجولين هو بحي اسمع إلهي ما أنت قارب ويجي مالنتي بخير كما هو مالنتي العقد إلهي وسي ويجي يا إلهي soomaalida dhaqankeedana waxaan ninkii maanta waxa haray qoodhay xerada ka jab habaar mayno oo inagu dad sabaran yihiin laakiin halkii ay kaga dhawaaqeen aan wanaag joognay way wadaan dad wax kala haysan kara minhiin ninkii geesiga ah dagaalka xilliga dagaalka
de hadalka dadku la kala baqayo yidhaahda sida ilaahay maalintaa wuxuu daa maalintii wax dhaceen muxuu yidhi ninkii dhiiranaan jiray kiina daliilihiina laga rabaa iyo intayada ka hadlaysa inaan saddexdaa qaybood waa tahay daawadayaal waxaynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenii arrimaha bulshada oo toddobaadkan aanu kaga hadlaynay abaarta iyo saamaynta ay ku yeelatay bulshada iyo dabcan sidii looga caawin lahaa ee gurmadka dowladda iyo dadkuba ay ku howlan yihiin looga qayb qaadan lahaa aad iyo aad baad daawashadiina ugu mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh xaliil cabdilaahi axmed oo barnaamijka nagala qayb qaadanayay aad baad wasiir ugu mahadsan tahay iyo xildhibaan cabdiqaadir maxamed xasan indho oo isaguna barnaamijka aad arkayseen inuu si wanaagsan nogala qayb qaadanayay waxaan kaloo u mahad celinayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga somalilan mudane maxamed shukri jaamac aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin sida wanaagsan aad nogala qayb qaadateen daawayaalidinkuna aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina waxaan si gaara ugu mahad celinayaa tafatiraha guud ee telefishinka qaranka somalilan xuseen aw jaamac jibriil xagar iyo madaxa barnaamijyada xuseen cabdilaahi deeqsi oo labaduba aad ugu howlan barnaamijyada telefishinka ka baxa iyo dabcan si gaara barnaamijkan arrimaha bulshada dhiirigelintiisa iyo dabcan waxqabashadiisana gacan weyn naga siiya waxaan u mahad celinayaa inamada kamarda ku duubayay ee ku howlana xasan baalan rooma iyo cabdi cumar jibriil iyo axmed seeraf iyo dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin barnaamijka daawadayaal waxaa soo saaray anigoo nuurudiin cabdullaahi culujooga anigana halkan idinkala socodsiinayay intaynu toddobaadka soo aadan ku kulmi doono mid kan oo kale ah waxaan idinkaga sii tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu